gaarigan daawadayaal waxa watay afhayeenka xukuumadda ayaa watay warar ayaa sheegaya inuu dhaawac halis u yahay. haddaba dad fara badan ayaa isweydiinayo maxaa iska galay ama maxaa ka dhaxeeyo dilkii loo geystay wariye Afrika iyo sidoo kale wariye Macalimo. weerar bahalnimo ah oo gaadmo ah ayaa lala beegsaday wariye Maxamed Ibrahim Macalimo. haddaba daawadayaal waxaan kula wadaagi doonaa xogo iyo macluumaad sira way heleen hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya oo baaritaan hordhac ah ku sameeyay ciddii ka dambeeyay weerarkan. waxaan kula wadaagi doonaa halka uu ka dhacay qaraxan, qaabkii loola beegsaday Macalimo weerarka, kaas oo qof naftahaliga oo isku soo xiray waxyaabaha qaraxay oo gaarigiisa isku dhuftay. haddaba waxaan kula wadaagi doonaa halka iyo sidoo kale qaabkii uu dhacay qaraxa Macalimo. sidoo kale daawadayaal qaraxan Macalimo lala beegsaday ayaa waxa uu dhaliyay tuhun weyn, waxaana la helay xog iyo macluumaad muujinaya in arrimo siyaasadeed darteed loo beegsaday Macalimo. haddaba ma kursiga xildhibaannimada uu doonaya ayaa la rabay in laga dilo, mise sidoo kale xogo iyo macluumaad uu dhawaan baahi rabay maadaama uu yahay afhayeenka xukuumadda ra'iisul wasaare Roble ayaa loo weerarayay oo loo beegsanayay. haddaba xogahaas iyo macluumaad kale oo sira ayaan kula wadaagi doonaa oo ku saabsan Macalimo iyo sidoo kale qaraxyadii faraha badnaa ee horey lagu qarajin rabay uu ka badbaaday. hase yeeshee daawadayaal inta aan xogtaan u gudagelin fadlan muuqaalkan leegaray si ummadda Soomaaliyeed ay ugu duceeyaan Macalimo dhaawicii ka soo gaaray qaraxii lala beegsaday in Allah subxaanahu wa ta'aala uu ka kiciyo, sidoo kalena warbixintan ay u baahdoona gaarto bulshooyinka Soomaaliyeed ayna u helaan xogta iyo macluumaadka ku saabsan qaraxan lala beegsaday Macalimo. sidoo kale nagu soo biir oo kamid noqo asxaabteena adigoo page-keena leeg dhahanaya, sidoo kalena YouTube-keena Haldoor Media subscribe dhahanaya. haddaba daawadayaal weerar argagax iyo bahalnimo leh ayaa lala beegsaday wariye Macalimo. Macalimo wuxuu ahaa wariye dadku ay si weyn u garanayeen, kaas oo ka soo shaqeeyay BBC-da. haddaba Macalimo ayaa barihii ugu dambeeyay waxa uu soo galay siyaasadda isagoona xilal ka qabtay wasaarado kala duwan. haddaba Macalimo oo iminka ku magacaaban afhayeenka xukuumadda ra'iisul wasaare Roble ayaa maanta waxa lala beegsaday qaraxa runtii magaalada Muqdisho idil qaybo badan oo ka tirsan laga maqlay. qof naftihaliga oo isku soo xiray waxyaabaha qarxo ayaa isku dhuftay gaariga Macalimo, waxaana uu rabay in loo qaarajiyo sidii loo dilay Allaha u naxariistay wariye Cabdicasiis Afrika. haddaba dad fara badan ayaa isweydiinayo maxaa iska galay ama maxaa ka dhaxeeyo dilkii loo geystay wariye Afrika iyo sidoo kale wariye Macalimo. haddaba labadan shakhsi ayaa labaduba waxay ka simanayeen in ay xilal ka hayeen xukuumadda ra'iisul wasaare Roble ayna si weyn u cadaadiyeen dhanka kale ay siyaasadda isku hayaan ee Farmaajo iyo sidoo kale Fahad Yaasiin. haddaba tuhun siyaasadeed oo arrintaasi la xiriiro ayaa jiro, walina baaritaano ayaa socdo oo ka hor dhici mayno. hase yeeshee dadka Soomaaliyeed waa in ay indhaha furtaan oo markay wax dhacaan kaliya aanan ku soo koobin Al-Shabaab ayaa ka dambeeyay. haddaba daawadayaal aynu isla daawano mid kamid ah muuqaaladii laga soo duubay goobtii uu qaraxaasi ka dhacay. haddaba Macalimo runtii waxa uu ahaa shakhsi firfircoon, kaas oo activist ah, waana suurtagal in maadaama uu yahay qof hadalkara saxaafadana muddo badan ka soo shaqeeyay in uu hadalkiisu dad badan dhibay, sidaa darteedna loo qarajin rabay. runtii Macalimo wuxuu ka badbaaday qaraxyo fara badan oo magaalada Muqdisho ka dhacay, waxaana kamid ahaa qaraxyadaasi weerarkii lagu qaaday Hotel Jazeera waxaa ka soo gaaray Macalimo dhaawac. sidoo kale weerarkii lagu qaaday maqaayadaha Liido waxaa ka soo gaaray dhaawac. sidoo kale waxa weerar lagu qaaday Maka Al-Mukarrama hotel ku yaalo waxaana ka soo gaaray qaraxaasi dhaawac. sidoo kale waxa uu Macalimo joogay habeenkii la weerarayay Hotel Elite, kaas oo ku yaala xeebta magaalada Muqdisho qaasatan aagga Liido. haddaba ugu dambeyn Macalimo markii waxaasuu idil ku dhiman waayay bartilmaameed toosa ayaa maanta lala beegsaday. haddaba daawadayaal warbixintii aan ka diyaariyay halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa. inta aan muuqaalkiisa kala kulmayno sidaa iyo nabadgelyo, mahadsanidin. gaarigan daawadayaal waxa watay afhayeenka xukuumadda ayaa watay
warar ayaa sheegaya inuu dhaawac halis uu yahay gaarigii sidaa ayuu noqday gaariga afhayeenka xukuumadda watay sidaa ayuu noqday waxaan hortaaganahay gurigii waa kaa ninkaas qarxiyey dhiiggiisana halkaa ayuu ku furday oo runtiina qarax wuxuu waa mid aad u weyn oo meelo kala duwan oo caasimadda laga maqla ayuu ahaa goobtii ayaan iminka weli toos ugu sugannahay usoo duceeya afhayeenka xukuumadda usoo duceeya iminka ayaa dabcan lagu dabeybaya mid kamid ah isbitaalada caasimada ayaa lagu dabeybaya warbaahintii ayaa weli goobta ku sugan oo aniga aan kamid ahay runtiina qaraxan wuxuu ahaa mid aad u weyn oo runtii caasimada meelo kala duwan laga maqla ayuu ahaa gaariga afhayeenka waa kaa daawadayaal afhayeenka xukuumadda gaarigii sidaa ayuu noqday daawadayaal sidaa ayuu noqday ninkaas qarxiyeyna runtiina hilibkiisa goordhow halkan ayaa laga qaaday ninkaas qarxiyey hilibkiisa goordhow halkan ayaa laga qaaday bacda ayaa lagu qoray ninkaas qarxiyey Ibrahim Macallimo gaariga uu saarnaa gaariga sidaa ayuu noqday waxaa soo gaaray dhaawac weyn markaasina waxaa loola cararay isbitaalada ku yaalla magaalada Muqdisho waxaana been abuur ah wararka sheegaya inuu afhayeenka federaalka Soomaaliya uu geeriyooday wixii warar dheeraad ah ee ka soo baxana waxaa ku daawan doontaa telefishinka caalamiga ah ee ninkaas qarxiyey hilibkiisa halka ayuu ku jiraa ninkaas qarxiyey hilibkiisa halka ayuu ku jiraa daawadayaal ninkaas qarxiyey hilibkiisa waa kaa halka ayaa laga arurinayaa gaariga afhayeenka waa kan gurigu deganaana waa kaa wax hilib dhiigga halkaas runtiina ku firdheenna waa dhiigga afhayeenka dhiigga kor ku fiday ujeedeen ama halkaasaa ku firdha ujeedeen waa dhiigga afhayeenka dabcan muuqaalka sii shargareeya gaarigu afhayeenka wata daawadayaal sidaa ayuu u ekaaday guriga afhayeenka deganaana waa kaa dhiiggiisa halkaas ayuu ku firdhay ninkaas qarxiyey hilibkiisa waa kaa marka wararka sheegaya in macalmuhu dhinto waxba kama jiraan daawiciisa iminka mid kamid ah isbitaalada caasimadda ayaa lagu dabeebayaa afhayeenkana muusan dhiman hase haatee waa dhaawac gaarigiisa sidaa ayuu noqday haddaba Macallimo runtii waxa uu ahaa shakhsi firfircoon kaas oo activist ah waana suurtagal in maadaama uu yahay qof hadal kara saxaafadana muddo badan ka soo shaqeeyay in uu hadalkiisu dad badan dhibay sidaa darteedna loo qarajin rabay runtii Macallimo wuxuu ka badbaaday qaraxyo fara badan oo magaalada Muqdisho ka dhacay waxaana kamid ahaa qaraxyadaasi weerarkii lagu qaaday Hotel Jazeera waxaa ka soo gaaray Macallimo dhaawac sidoo kale weerarkii lagu qaaday maqaayadaha Liido waxaa ka soo gaaray dhaawac sidoo kale waxa weerar lagu qaaday Maka Al-Mukarrama hotel ku yaalo waxaana ka soo gaaray qaraxaasi dhaawac sidoo kale waxa uu Macallimo joogay habeenkii la weerarayay Hotel Elite kaas oo ku yaala xeebta magaalada Muqdisho qaasatan aagga Liido haddaba ugu dambeyn Macallimo markii waxaas uu idil ku dhiman waayay bartilmaameed toos ah ayaa maanta lala beegsaday haddaba daawadayaal warbixintii aan ka diyaariyay halkan ayaan ku soo gabagabeynaya inta aan muuqaalkiisa kala kulmayno sida iyo nabadgelyo mahadsanidin